السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان umada islaamka daafaha dunida kala jooga waxaan leeyahay salaam calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu gaar ahaan umada daawata channelkayga Sida Official oo aniga Cabdimaan Maxamed Ismaaciil waa mar kaliya barnaamijkeeni oo maanta ku soo qaadan doono musharaxiintii amba doorashadii ka dhacday Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku soo baxeen laba nin oo dadku aad iyo aad u wateen labada nin maanta maansheer u soo sameeyay sidaad wada ogsoontiin xagga golaha deegaanka soo baxay Cabdikariin Axmed Mooge golaha baarlamaankana uu soo baxay Barkhad Jaamac Batuun waxay ku bilaabmaysaa maansheedu sida tan cimriga hadaan la isku daahayn adduunkan la isku calaf ahayn cunto hadaan la isku ceeshahayn cudurradu kala cayn duwan cari walba ciid gaara cimilada u kala duwan gubta hadaad istiraacayn ceelashu way kala gundheer yihiin candho xoolaad gacmaha loola tagay caana ka hor halgeysanin ciil tiro wadooyin ka caawiyay rabtaa caadil haduu maanta Cabdikariin oo maayir ka dhigay waa caynkaad hore u sheegtay ha cayinin maayir soo may rabtaa intaas waxaan ka wadnaa oo maayirka Jamhuuriyadda Soomaaliland soo bixi doona Hargeysa maayir Cabdikariin Axmed Mooge imankana waxaan soo qaadan doonaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka Barkhad Jaamac Batuun isagana halkan sidan ay ku bilaabmaysaa intiisu cunto ay qacani qaadaa carabka gaadhe dhanka kalena maan ilaabin cagaftii cadaaladda dad baa ku caleema saaro kuyuu cadceed kulul galay cunug baa ku dhashay goobtii codbixinta caasi ha ku noqonin dadkii kuu codeeyay Soomaaliland aad sharciga Barkhadow la baalmarin bay rabtaa aan bal soo cadceed dhiciye tagtaan soo carbinayaaye ciribtaanoo wanaajiye horaan u soo cadibmanay intaasna waxay ka hadlaysaa gudoomiyaha baarlamaanka Barkhad Jaamac Batuun oo isaguna ku soo baxay kastoo aan weli la shaacin noqonayo gudoomiyaha baarlamaanka insha Allah labadooduba waxaan uga rajaynaynaa in boosaskan soo kala magacaabnay noqdaan maamaha Soomaaliyeed baartu waxay tahay ninba sarintu muuqataa siliceedu dhiba marka inaga sarinteena muuqataa siliceeduna dhibaya waxa weeyaan dalkeeni oo bilaa wada oo aan hagaagsanin oo taa waxaan jeednaa Cabdikariin Axmed Mooge aan ku leenahay hadaad Ilaahay maayir ka dhigo inkastoo horta cod dadku la tartamayay oo aan codka ugu sareeyo haysatid laakiin insha Allah haduu Ilaahay maayir ka dhigo waxaan ka codsanaynaa in wadooyinkaas anaga silic naga haystay wadooyinka inay naga caawisid waxaan kale Barkhadna isagana leeyahay ninba intii saaran baa culaysisa marka haduu insha Allah adna gudoomiyaha baarlamaanka ka dhigo inkastoo aanan Ibrahim abwaanka Xasan Dhuxul Laab Saalax oo isaguna kaalinta labaad ku soo baxay insha Allah labadiinaba iskarabsan doontaan oo noqon doontaan baarlamaanka ugu fiicnaa Jamhuuriyadda Soomaaliland soo mara waxay kale maamaha Soomaaliyeed oranaysaa ul intay qoyan tahay baa la toosiyaa marka waxaan taa ka wadaa ul intay qoyan tahay baa la toosiyaa inta xilku cusub yahay aan wali xilkii lagu dhawaaqin oo xilkii la qaban ayna nagu isleena wax nii sheega insha Allah idinkuna waxaan noqon doontaan kuwii waanadeeda qaata wixii hore u soo qorteen ee u yaalayna qabta waxaan kale leeyahay magafa waa Ilaahay baan magafinba qof kasto kamida umada Soomaalida amba caalamka oo dhan gafu ka dhaca marka waxaan leeyahay insha Allah haduu gafafkeena ka dhaca qof aan gaf ka dhicin ma jiro oo bilaadan baa leeyahay insha Allah gafafkeena ka dhacayna ay kuwa yar oo waxba ahaan inay noqdaan waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgeliyo intan tan iyo kulanti dambe ku kulmi doono waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh